السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada guys iyo channelka aad daawanaysaa waa ibarka darbo harjaa dhibaatada caafimaad qabtaan. soo noqon wanaagsan guys. Maanta talka soo aragtay ama mawduuca soo aragtay waxaan rabaa inaan soo gudbiyo muuqaal ka duwan oo ka xiiso badan. Kulay title-ka soo aragtay insha Allah muuqaalkan xiiso gooni ayuu leeyahay. Intaan muuqaalkan ugu galay ka hor hadda meesha ku cusub tahay بوصبر جنال كان حكي لي أنا سبسكرايب له هذا المقال كان على جريس أدي ما صنت هاي مقال كمان تحكي سابسين يعني سو أركتها تلك سو أركتها ده بقال كسابسن ريليشيب أم حرير كسابسن كل هوري أنا أمك شو على بقى ويلي جور حرير كده حياة وحب بلاوين ده بقال إن تلاف كيس كده بقال لكن مقال كان حكوا أركي دون تاد ده بقال كأه أو رسمي كأه أو قف إلا ده بقال الراعة وليه ده بقال كاسوي هاي من لياف كيسوته سواء نقول قال له مقال كنا تاريخ مركي سبتمبر 7 لو كل لابتن إكودا بوليس كحسوا جاري كول كي إيمان عيو ستريت أما وضو كل كاسن حسوا عي كبر شيئا يسوي إن ده بقال الموسم عد ده بقال سنقف كلام عن وحصاد ده بقال أم صاد وراء عيو حتى هاي وصاحب كده. I said I would never contact you again. I destroyed the device. Please this one time let me. كمان بوليسكا waxay u sheegtay in dawgal lagu wado isla markii waxa dhacday inay booliska adreeska soo raaceen ay meesha imaadeen soo kale gabadhi ayaa meesha lagu arkaya waliba iyadoo kaamirada booliska duubeyso gabadhaas waxay sheegaysaa inay jirto in qof 2 sano isla socdeen muddo 2 sano qofkaasna isfaham waayeen oo sida hadda dabagalka hadda adi pressure u saaray kadib ay isku dayday inay dhahdo booliska kugu dacweyna ama waxaan jooji adiga ugu dambeyn waxay dhahday wuu joojiyay laakiin muddo kadib ay u soo noqday waliba waqti dhow wuxuu sameeyay inuu ii diro emailo message qoraalo adiga إعتان أو دريميس إن هذا اللي كجرتو إنتي جرتا إنتي كبحدة إنتي جوكتا يأسل سعتان. Again, he says I'm sorry for everything, and we talk as friends, and everything's okay. All of a sudden today, I'm getting emails like, "Where are you? Who are you with? What are you doing?" He was looking for me for 2 days and like calling different places, trying to find out where I was. He looking in parking lots for my car. Okay. Thinking places where he thinks I'd be. And he finds my car, and I guess today is when he put a GPS tracker on my car. Claims he put a GPS on. That's what he told me. He said it's on the left side tire. So qaybta argagaxle ah waxay tahay wuxuu ii sheegay in uu gaarigeyga baakinkiisa raadiyay gabadha gaarigeeda baakinkeeda uu raadiyay meeshii baakiminayso uu raadiyay uuna arkay gaariga baakinka helay kadibna uu ku xiray gaariga GPS oo kala soconaa gaarigaas meel walba uu joogo so waxay sheegtay boolisku sheegtay gaariga hadda ay wadato inuu ku xiran yahay GPS oo lala socdo meesha aan joogay dhaxday booliska ayaa meesha sidoo kale waxay ku arkayaan ama ku kulmayaan isla ninkii GPS ku xirtay asoo meel gas station ku jiro oo sugayo gabadha meesha ka bixi doonto iyo meesha ay doonto isla markii booliska waxay aadayaan dhanka wiilkan waxay ku noqonaysaa kulli argagax سووريتي على قاعدة وحليها هاي محد what's going on محد صعد ماشي كصعد سو سوى كل حوش already إن لهاي ودرنسية هاي أو شحذ اللي بهي سو مركي لقوا رأس أنت حليها هاي أجرتها وقرنا دم بيجيس كله وحدا ويجرتها إن دبقال أسمية أما أصاد دبراعي. Hey, how are you? Good. My name's Officer Wyndham with the Johnson Police Department. I don't know what's going on today. Okay, so that's the first time I came here. I just thought she might be with someone, so I thought to see where she was. That's all I did. I didn't do anything else. I never had any criminal history. Okay. Like that. I just wanted to see where she was and wanted to meet her. What's your relation together? We hang out for 2 years. So that's what I did, and I said I would never contact you again. I destroyed the device. Please, this one time, let me go because I'm a student. So this is the one time. So what's what you said? You said you thought she was with someone tonight? Yes, she said she went to the hotel. So I thought she might be with someone. So I just wanted to see who it was. Okay. So that's why I put the tracking device. Other than that, I didn't do anything else. So you actually put a tracking device on her car? Yes. Okay. Where is it at? Under the car. Under the car? Yes. Is it on the driver's side, passenger side? Like on that side wheel. سو كل وحش شاقة إني جودان بلن لهاد قف بلن لهاد هوتيل قف بلن كل لهاد كليا وحارب إنا عرق قف بلن ثلاثة أيو كجوابها كل وحش قفة إذا أنجروا يعني قف مدة هراء بيسي إنه دب ولا صهاد ولا سحرير ولا بيوشكت إني بلن لهاد هاي كده إنه وسكوت إنه عرق قف بلن ثلاثة سو كل وحش قرنا أم وحش شاقة إني صحتها إني جاري قبل وحريها GPS ولا صعدوا ولا بقى قيبت وحريها أو شاقة قيبت بسنجر جيس كيس وحريها سكستو شاقة سو وحون عطسنا يا maadaama dambigiis qeybtay inuu iska baxo oo dhaho dib dambe uma sameeyna waxaan halay fasaxo laakiin booliska wuxuu isku dayaa inuu dhaho meesha joog GPS-ka ayaa gaariga soo furaa isla markii GPS-ka markuu imaado booliska inuu gaariga ka soo furo damco waxa dhacaysa ninkii inuu isku dayo inuu gabadha soo waco telefoon hoosta gabadha isla markii wax ma qaranayso waxa sheegaysaa booliska waxay leedahay ninkan call ayuu soo garaacayo uu isoo wuxuyaa
booliska ku noqonaya ninkaas oo dhaha telefoon dambe ma diri kartaa laha oo ma soo wici karto qofkan ma aqaan muxuu dhiiray in ha adkeenin xaaladda jilic ma dhiiro ma aqaan He's calling me. Should I answer? Don't answer that. Okay. 40's clear. Are you still out with him right now? He's attempting to call over here. Hey, Ramesh. For the time being, just hang up the phone. Don't try and call it for a second, okay? Just let us sort this stuff out, all right? booliska shaqadiisa sii wadana wuxuu isku dayay inuu GPS meesha ka soo bixiyo laakiin wuu arki weynaa waxa dhacaysa in wiilkii soo wadaan ay dhahan haye GPS ka xagee gelisay uu sheegay in uu galiyay sidoo kale waxtaa uu tilmaamay qaabku yahay wax adiga like saacad camal ku tilmaamay inuu gaari u xiray So that you put the tracker on this side of the car? Yes, on this side. By this wheel? Yes, on this side. On the under the thing, yeah. on the metal. Metal, yeah. Yay, firm. He says the rear driver's side wheel, and it's gonna be on the metal, like undercarriage, like on the bottom of the car, but close to that, close to the wheel. How big is it? It's like a magnet, small, black, Like- black color. Yeah, this color. Like a size of a quarter, No, more than like this size. Like a this size. like a watch. yeah, watch this Okay. size. All right. soo booliska markuu guuleysto inuu GPS ka gaariga ka soo furo waxa dareemaysaa in gabadha aad u farxday waliba GPS kaas gaarigeeda laga soo bixiyay kulay culeys fara badan uu ku haysaa filayo I found it. You found it? Yep. Oh my god! Yep. You can't get it? No, I can't. I'm gonna take a picture of How did they do that? markay dhacday in GPS ka booliska soo bixiyay xaaladan ay saas tahay ninka waxay u muuqatay maadaama uu dambigiisa qirtay inuu la fasaxi doono ama uu bixi doono laakiin gabadha ayaa waxay codsatay inay dacweyso ayna xirto ninka oo loo xiro oo dacwo lagu soo oogo Come over here for me, okay? All right. At this time, you're under arrest for unlawful surveillance, okay? When will I get down? You got something, if you want to keep talking, that's fine. You got something you need to review, and then okay? isla markii waxa dhacayso in wiilkii meesha lagu xiro dacwo lagu soo oogo dacwadaas ay noqonaysa ilaalin aan sharciyeysaneen in lagu soo oogo dacwo oo dabagal ah su'aasha ku weydiinaya wax kale ma ahan adoo qof sal socotaan xiriir ka dhaxeeyo gabadhiina ee ku dhahday xiriirkaaga ma rabo ama ayada xiriirkiina socdo ayaa ka dareentid waxyaabo kale hoos hoosaysa fahmi karta qiyaano ama jeetin dabagal sidaan la heerka ama ku sameeyay ama dabagal nooc walba ha noqdoba dabagal ma ku sameeyay sidoo kale hada u soo jeesay dhinaca gabdhaha adiga hadda muuqaalka daawanayo haddii dhacdo in qofkaaga dabagal kugu sameeyo nuucay rabto ha noqoto ama nuucan ha noqoto ama nuuc kaleba maxaa dhici lahayd inaad booliska aad dacweyso ma dhici lahayd inaad qofkaas dacweyso dacwadaasna ay noqoto darteeda inuu dabagal kugu sameeyo kulley wixii fikrad aad qabtiin xukuumadda igu soo qor daawashada muuqaalkan aad ay u mahadsantihiin waxaan u balinay muuqaalkan waxay kaga tagay insha Allah sidaas iyo nabadgelyo